بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم walaalayaal waxaan sii wadnaa casharkeenii toddobaad oo ah oo ku saabsan maxaa la dhahaa functions functionsku waa software maaragtay dadku programyada ay qoraan dadka mesela developerska sida annagoo kale ay qoraan functionka marka ujeedadu uu leeyahay wax kale maaha inuu hawl un ku fuliyo ku qaasa hawshaasoo aad laga yaabo inaad u baahan tahay mid ku celcelis ah marka sida functionka loo qoray iyo sida loo sameeyo ayaynu baran doonaa insha Allah marka aan guda galno waxaan yidhi functionsku waa qoraal PHP ah oo programmer kaasoo ujeedadiisu tahay inuu fuliyo arrimo khaas ah oo programkaas uu isticmaali karo dhowr jeer sababaha loo qoro functionska mar walba waxa weeye inaad isticmaali karto wax celcelis aad u baahatid functionkaas shakhsi ahaan gaar ah kugu sameynaya waxaan programkaas si gaar ah kaaga jawaabayo waxyaalaha qaar aad u baahan tahay programkaaga u baahan yahay marka sidoo kale PHP function iskama fuliyo arrin marka bogga shabakada la galo hase ahaatee PHP functionku isticmaalkiisu wuxuu suurta galaa marka la sameeyo codsi ama sida call marka programkaaga uu dhaho meel adoo wax qoraya aad dhahdo leeyahay functionkaas aan u baahanahay waa inaan u yeeraa aad call u samaysaa marka callka u samayso ayuu functionkii maaragtay isticmaalkiisii ayuu hirgalaya marka sida loo isticmaalo anaga arki doona insha Allah marka waa muhiim inaan fahmno intaas macnaha functionku waa shay hawl gooni ah noo qabanaya anaga sida shakhsi gaar ah mesela ka soo qaado qof hawl ku qabanaya xafiiska uu ku dhaho okay tirooyin badan si ana tirooyinka soo ka dhufanaya ana xisaabta jawaabteeda ku soo celinaya functionku waa sidaas oo kale muhiimaddu waxay tahay functionka isticmaalkiisu in uu hawl gaar ah noo qabto hawshaas gaar ah noocay noqon kartaa waxay noqon kartaa inuu tiro noogu geeyo waxay noqon kartaa inuu message noo soo celiyo waxay noqon kartaa inaan haysano array ama list aan u dhiibno oo arday ama macnaha macaamiil ay ku qoran tahay aan dhahno informationkaas macaamiishaas nooga soo bixi functionka shaqadiisu waxay tahay inuu hawlahaas kale uu ku fuliyo marka sida halkan ka muuqata badanaa markan aan declare garaynayno functionka waxaan qornaa ereyga ay ku qoran tahay function dan waxaan raacinaa magaca maaragtay sida halkan ku qoran magaca functionka waa kaas marka magaca functionku then labada bracket wixii u dhaxeeya waa ujeedada functionka uu sameynayay haddaad xasuusataan markaan while loopka sameynayn haddaad xasuusataan markaan sameynaynay do loopkii for loopkii kulligood waxay lahayn bracketku wax kale maaha functionku ujeedadiisu waxay tahay inuu qabto hawsha aan ku qorno inta u dhaxaysa labada qaansadood qaansadaha iyo qaansadaha marka hawsha meesha ku qoran hadda tusaale meesha waxaan badanaa qornaa ereyga function then waxaan raacinaa magaca functionka oo ah magaca functionka then labada qaanadood labada qaansadood oo godgodan oo meesha hawsha functionka fulinaya ay ku qoran tahay dhexdooda waa wixii functionka uu qaban lahaa actionkii functionka uu noo fulin lahaa waa inaan ku qornaa programka sida hoos tusaalaha hoose ku cad meesha functionka tusaalaha hoos saa ujeedaan waxaan declare garaynaa functionka magaciisa waxaa la dhahaa qorsalaan ujeedadiisu wax kale maaha wuxuu noo soo celinayaa ama noogu qorayaa screenka hello world haddii functionkii aan doonayna marka inaan wacno sida hoostan meesha ku qoran meesha lineka ugu hooseeya ku qoran tahay qorsalaan u yeer ama call function so macnaheedu waxay halkan waxaan u yeeraynaa functionkii waxaan leenahay functionkii aan qoranay waa inaan halkan uga yeernaa leenahay okay noogu yeer si uu noogu qoro hello world ujeedadu waa intaas marka tusaalaha markaan dhexgalno ayaa si fiican u fahmi doontaan haddii ilaahay yaraa marka PHP function waxay leeyihiin wax la dhaho argumentigu wax kale maaha waa variable la raaciyo functionka kaasoo la dhexgeliyo inta u dhaxaysa labada qaanso so labada qaanso oo ah labada maaragtay tusaale waxaa jira hadda soo socda labada qaanso inta u dhaxaysa marka functionka waxaa la raaciyaa intii la doono argument waxay noqon kartaa hal waxay noqon kartaa labo waxay noqon kartaa saddex waxay noqon kartaa afar taasoo loo dhaxaysiinayo comma bal tusaalaha waxaan hadda aan slide-kan uu ka hadlaya aan u gudub markan kale sida halkan ka muuqata meeshan waxaa uga jeedaan functionka waxaan declare garaynaa function la dhaho function name la dhaho waxaan raacinaynaa argumentyada lagu sheegay wax kale maaha waa waxa argument 1 iyo argument 2 iyo argument 3 ay ku qoran tahay wax kale maaha waa variable uu programka ama functionkaagu isticmaalayo kuwaasoo maaragtay uu functionku wax uun maaragtay hawl ku qabanayo then uu ku soo celinayo marka functionadu qaar functionku wuxuu noqon karaa mid maaragtay wax kugu qoro screenka mid wuxuu noqon karaa mid ku soo celiyo xisaab return value wax kale maaha
laba tiraad u dhiibanaysa waxaa leedahay labada tira isugu kay soo dar ama isugu kay dhufo ama isugu kay qaybi ama isugu kay gee in jawaabta ayuu kuu soo return garaynaya marka muhiimaddu waxay tahay argumentigu maxay tahay argumentigu waa variable uu functionkaaga isticmaalayo variable kaasoo noqon kara ama xisaab ama qoraal kaasoo maaragta programkaaga wax ku sameynayo functionku kadib uu kuu soo celinayo iyadoo wax ay raacsan yihiin ama xisaab ahaan lagugu soo celiyo jawaabtooda marka sidee buu functionku u shaqeeyaa marka aynu fahamno function siduu u shaqeeyo marka hore sida halkan ka muuqata functionka hore meeshan hadda falaartu ay dhagdhag leedahay maahane kan hore waa function noogu qoraya sabuurada hallow cabdi sabuuradu wuxuu noogu qorayaa hallow cabdi marka functionku waa box oo kale anaga aan u leenahay hawshaa noo qabo anagu ma doonayno aan qoraynaa boxka waxaan leenahay mar walba diyaar noo aho markaan u baahano qoraal salaan markaan u wacno then wuxuu sabuuradu noogu qorayaa hallow cabdi marka functionku wuxuu ku qorayaa screenka hello cabdi qaybta labaad saad u jeedaan meesha falaarta ay falaarta cagaaran ay magacaabayso oo nameka ku qoran yahay wax kale maaha meesha nameka uu ku qoran yahay waa argumentigu function qaadan lahaa hadda functionkan inta ku qoran waxaa la dhahaa qoraan salaan laakiin functionkaas wuxuu leeyahay hal argumentigu leeyahay maxay tahay magaceeda waxaa la dhahaa name marka programka wuxuu noo soo celinayaa hello name macnaha hello haddii cabdi aan u dhibno functionkii wuxuu noo soo celinayaa hello cabdi haddii caasho aan u dhibno wuxuu noo soo celinayaa hello caasho haddii aan u dhibno hello mahad wuxuu noo soo celinayaa hello mahad marka functionka wuxuu ku qorayaa screenka hello ay la socoto magaca ku kaysan name magaca aan u dhibno hadday cali noqoto hadday caasho noqoto hadday maxamed noqoto hadday faarax noqoto marka waxa falaarta cagaaran ay ku muujinaysaa macnaheedu wuxuu yahay functionkan wuxuu leeyahay hal argumentigu leeyahay wax kale maaha waa name waxa la dhahaa argumentiga mid saddexaad jiro oo laba argument qaadan doona arki doona hadda waa kan marka sida halkan ka muuqata labada falaaro calaamadood wax kale idin sheegayaan functionkan wuxuu wataa laba argument num1 iyo num2 marka num1 iyo num2 wax kale maaha waa number 1 iyo number 2 oo kale marka functionku magaciisa waxaa la dhahaa isugeyn shaqadiisu waxay tahay uu noo qabanaya functionkan inuu isugu kengeeyo labadaas number marka waxaan declare garaynaynaa variable la dhaho jawaab dan waxaan leenahay jawaabtu waxay la mid tahay marka function argumentinada wax ujeedada argumentiga loo isticmaalo waa kana haddan si fiican u fahmaynaa oo ah tiradii aan argumentiga watay num1 iyo num2 ayaan isu geynaynaa jawaab ka sameynaynaa marka functionkii ayaan waxaan leenahay jawaabtii noo soo celi return wax kale maaha functionada qaar haddaysan sabuurda wax kugu qoreen waa inay soo celiyaan waxa la dhaho return wax ay ku soo celinayaan waa inay leeyihiin marka muhiim weyn inaan fahmno marka bal waxaa jira tusaalooyin aan u samayn doono maaragtay saddexdan shay haddii ilaaha yidhaahdo marka aynu fiirino marka sida aan u isticmaali karno saddexdan function oo ah kan ugu horeeya oo aan lahayn argument kan ku xiga oo leh hal argument oo ah name iyo kan kasii hooseeya oo ah laba argument wato oo la dhaho num1 iyo num2 marka saas u kala imaada functionku wuxuu qaadan karaa even argument ka badan 2 3 4 5 marka badanaa average kasta oo functionka uu leeyahay inta argument uu wato badanaa waa laba u badan yihiin laakiin 3 iyo 4 waa jirta marmar la sameeyo marka waxaan arki doonaa tusaale soo socda oo practical insha Allah markaan qorno ayaad ujeedadii iyo xigmadii oo dhan wixii aan hadda ka hadlayno inaan isugu imaan doonaa hadii ilaahay okay tusaaleheena waxaan qoraynaa function file-kan aan magacaawno aan dhahno bal hp save garayno okay save as waxaan ku save garaynaynaa function aan lahayn aan ku save garayno function aan lahayn argument taas waxaan macnaha magac wuxuu muujinayaa in functionkan uu leeyahay function aan argument waxba lahayn marka aynu qorno bismillaahir rahmaanir rahiim markaad qorayso function badan waxaa la qoraa ereyga function then waxaad qoraysaa qoraal salaan waxaa laga yaabaa inaad leedihiin waa ereyadiis ku dhejisay because functionku ereyada kale ma kala goyn karno dikano magac waxaa la rabaa inuu hal magac iswata yahay marka waxaan hadda aan isticmaalayna waxaa la dhahaa badanaa camel case wax kale maaha qoraal oo macnaha ka bilaabta capital ayaa qoraysaa then ereyga ku xigana salaan capital ka bilaabaysaa marka functionka kan qoraynaa marka aan functionka qorno labadaas qaansadood dhexdooda ayaan ku qoraynaa marka wixii function marka halkan waxaan ku qoraynaa
ujeedada functionku noo fulinaya. Okay, ujeedada maxay tahay? waxaan rabnaa inaan dhahno bas sabuurada noogu qor hello cabdi. Okay, marka sideen functionkan marka sikome hadda spaceyada waxaan yarayna bal saan u ogaano maaragtay. soo saad ujeedaanba waxaan qornay halkan function, then qoraal kaas waa function magaciisi. marka function magaciisa qaansadaas furaysaa, qaansada waxay sheegaysaa in kani uu yahay function. marka labada curly bracket ka halkan bahalka ku aadayay kan dhexdooda ayaa lagu qorayaa ujeedadii functionku noo fulinayo. maxay tahay waxa functionka noo fulinayo? hadda kan functionka ujeedadu noo fulinayo waxay tahay inuu screenka noogu qoro hello cabdi. marka sidee baan marka functionka maaragtay aanu u access garayn karnaa? sidee baan function ugu yeeri karnaa? marka halkan waxaan ku qoraynaa call ama Soomaaliyan ku qoraynaa si dadku u fahmaan. u yeer functionka. function magaciisa waxaa la dhahaa qoraal salaan. okay, balse wax kalood samaynaysa mala, bas magaca oo functionka ayaad meesha ku qoraysaa, qoraal salaan, then intaas ku qoraysaa bas. qoraal salaan oo qaansadaa wato bas. taas macnaheedu wuxuu yahay wuxuu suurto gelinayaa inuu noogu yeero functionkii annaga aan qornay. bal aan save garayno insha allah. save garayno, save. bal aynu fiirino marka inaan access garayn karno annagoo isticmaalayna bahalkeeni. aynu fiirino marka waxaan lehnaa function aan ahayn argument. function aan lahayn argument .php just waxa weeyaan waa erayo ama annaga aan file aan go'aansanay in aan siino magaciisa si aan u ogaano function ujeedadu yahay. marka hadhow markaad programka qorayso waad ogtahay waxaa leedahay leele functionkaas wuxuu ahaa functionkii aan argument lahayn. marka aynu fiirino bal wuu diidan yahay because malaha magaca ayuu diidan yahay. aan fiirinayno. okay, maxaan ku save garayna horta aan fiirino marka hore. aan dhahno bal save as. wakaas magaciisa waa kana aan lahayn argument. so bal koobiyeyna kan. okay, ku qorno meeshan. okay, call to undefined function qoraal salaan. wuxuu leeyahay there is an error. okay, this is something well always markaa wax qortid you deal with that. marka dhib male. nooc waa qayb kamid ah waxbarashada. marka waxba atir meeshan fiiri saddex ayaa ku jirto. functionka saan u declare garaynay iyo sida aan u qornay labay kala noqdeen. marka bal fiiri kan hadda erey zaida ku jirta meesha saas oo ahaa. marka aadi ma yareeyay. marka functionka waa inuu isku qoraal yahay. meeshan qaadi yaradu ka dhigay laakiin anaga qaadi weyna u baahnaa because sidii aan functionka ugu declare garayna waa inuu ugu dhawaaqnaa. marka qoraal salaan. marka aynu dhahno control s aan ku celino aan dhahno refresh. soo ma jeedid? marka taas waxay ku tusaysaa haddii aan side by side isu qoro functionkii halkan waa meeshii functionka aan ku declare oo annagoo niri weeya cali ow markaan ku yeero hello cabdi dheh. cali shaqadii cali ka dhig inuu yahay functionkii shaqadu noo qabanaya cali waxay tahay marka inuu dhaho hello cabdi. marka functionku waa sidaas oo kale. waa declare garaynay wuxuu noo qaban lahaa ayaan ku qornay meesha ay ku qoran tahay ujeedada functionku noo fulinayo waxay tahay inuu sabuurada noogu qoro hello cabdi. halkan hoose marka meeshan halkan ujeedaan waa sida functionka loogu yeero. marka I hope inaad fahamteen xigmadda meesha ku jirta. marka haddana waxaan u gudbaynaa functionadii kale oo maaragtay kii hal argumentiga lahaa aanu fiirino bal sida aan u isticmaali karno insha allah haddii ilaahay yiraahdo. inuu aragno sida aan u qorno function wata hal argument. okay, marka halkan ku qoraynaa function wata hal argument. argumentigu wax kale ma aha saan iri waa variable la raaciyo .php oo function wata hal argument. okay,
copyayno hadhow markaan u baahno isticmaali karnaa marka sida halkan ka noqoto marka ujeedada maadaama aan yiri functionka wuxuu wataa hal argument waa inaan marka hore functionka magaciisa aan qornaa qoraal salaan ya salaantu argumentiga wata maxay tahay argumentigan siinayna waxay tahay name wax kala maaha functionkan waxaan rabnaa inuu noo soo celiyo ujeedada aan functionka u warkirgelin maxay tahay ujeedada uu function fulin maxay tahay inuu sabuurada noogu qoro magaca qofka la siiyay oo argumentiga aan isticmaalayna asagoo isticmaalaya inuu noogu qoro hello hebel marka seen marka u dhigi karnaa marka waxay noqonaysaa sabuurada wuxuu noogu qorayaa marka waxaan leenahay echo hello space dan waxaan isticmaalaynaa concatenation rule-kii oo halkan waxaan leenahay name sida halkan ka muuqataan wax kale maaha functionku wuxuu noo qabanayaa in uu magaciis argumentiga annagaan usoo gudubna ahaa oo name ahaa inuu intuu soo qaato uu noo soo celiyo argumentigaas oo ay la socoto ereyga hello hebel iyadoo la socoto hello cabdi hello caasho hello farax marka sideen u test garayn karnaa marka functionkeena seen testiga aan samayn karnaa muxuu seen ku ogaanaynaa inuu noo soo celinayo hello hebel sidan ay functionada sida loo test garay sidaan oo kale way marka maxaan leenahay hadda waxaan sheegaynaa waxaan magacaabaynaa variable dhaho magac variable-ka magacaas waxaan siinaynaa cabdi soo qaad okay then waxaan leenahay annagoo isticmaalayna function maaha magacaan functionkaan sheegaynaa qoraal salaan waxaan u gudbinaynaa variable-kii annaga aan declare garayna waa inaan u sheegnaa ilaa magac baan siinaynaa functionka waa inaan magac u gudbinaa oo dhahnaa magacaas markaan u gudbino waa inuu sabuurada noogu soo qoraa ilaan functionka waa qornay hello hebel inuu noogu soo qoraan marka waa inaan magaca u gudbinaa as an argument soo maaha magacii aan gudbinaynaa hadii ilaaha yiraahdo then waxaan leenahay okay marka waxaan rabaa bes hadda waxaan samaynaynaa marka just waa inaan un save garaynaa aan marka ku aadinaa browserka aan fiirinaa sida functionka u shaqeeya marka waxaan qaladnay wax kale maaha meeshan soo ma jeedid halkan waxaan ku qornay qoraan salaan halkan waxaan ku qoran qoraal si kale wax kale maaha waxaa zaa'ida aadaasa zaa'ida marka wuxuu leeyahay aadan anuu ma garanayo waxbaad declare garaysay waxaad declare garaysay waxaad aad wacaysaa ismale marka I don't know waxaad ka hadlaysaa marka waxaan waa software intelligent marka wax kale ma sameynayo haddaan hadda dhahno refresh saad u jeedid hello cabdi unasi soo ma jeedid so haddaan isbarbar dhigo hello cabdi haddaan hadda masalan ka soo qaad aan halkan ku bedelo haddaan halkan ku bedelno caasho haddaan control s waa inuu na siiyaa hello caasho because ilaan magaca aan u gudbinay marka hore cabdi oo hadda caashan u bedelay marka haddaan dhahno marka refresh ku sameeyo waa ujeedaa hello caasho noqday ma fahmaysaa marka waxa weeyaan ujeedada functionku noo qabto maxay tahay inuu noo qaado magacaan siinay uu noo raaciyo hello hebel hello farax hello caasho hello maxamed hello cali marka functionka argumentiga wato waa kaasoo kale marka I hope inaad fahamteen functionka halka argument wata sida loo qoro iyo sida loo isticmaalo marka tookada ku xigto waxaan sameynaynaa functionka wata laba argument bal aynu insha allah u gudubno kaas hadii ilaahay yiraahdo bilaabaynaa tusaalaheennii saddexaad oo ku saabsan functionka marka functionkan wuxuu noqonayaa function wata laba argument waa function wata laba argument on hp marka hore waa inaan function ka qornaa magacii function aan dhahnaa functionkan waxaan ku magacaabaynaa isugeyn macnaheedu wax kale maaha wuxuu qaadayaa functionkan oo isugu geynayaa laba number okay number 1 iyo waxaan qoraynaa number 2 marka waa inaan calaamada siinaa si uu u fahmo marka functionka wuxuu qaadanayaa laba argument labada argument waxaan argumentyaal aan u isticmaali doono noqonay marka waxa weeye halkan ujeedada
functionka waa inuu isu geeyo labadan. Okay now si labada number aan isu geeyno marka hore maxaan ku keydinaynaa labada number waa inaan qornaa jawaabtu waa meeshaan ku keydin lahayn isu geynta labada number marka wax kale maaha waa inaan qornaa marka number 1 oo loo geeyay waxaan isticmaalaynaa haddaa xasuusataan operatoradii aanu baranay oo ah isu geynta addition operatorkii ayaan isticmaalaynaa marka haddana waa inaan sheegnaa numberkii kale u geyn lahayn number 2 waa inaan semicolon qornaa marka aan u sheegnaa programka inuu noo soo celiyo jawaabta ilaan wax screenka aan ku qorayna maaha waa tiro xisaab ereyga return waa inaan isticmaalaa returnku wax kale maaha laba tiro soo ka dhiftay jawaabtoodu ku soo celinayaa return waa inaad dhahdo uu ku soo celiyaa as jawaab ahaan marka waxaa leedahay return jawaab. Okay, then call the function here. U yeer functionka adigoo siinaya labo argument. Okay, labada argument waa inaan sheegnaa aan laba number aan qornaa aan dhahnaa n1 waxay la mid tahay 100. Okay, aan dhahnaa haddana n2 qasab ma inaan numberada isku magac celin functionka asaga qaadanaya numberada asagaad u gudbinaysaa asagu ma kala jecla ama n1 ama laakiin marka aad qoraysid functionka habka aad u qoraysid iyo habka aad maaragtay aad numberka ugu gudbinaysid qasab maaha inay soo ekaadaan. hadda fiiri number 1 ahaan iyo number 2 ahaan ayaan functionkii ku dhiglagarayna laakiin numberada aan gudbinayna waxay noqonayaan n1 iyo n2 marka soo qaad hadda aan ka dhigno kan conton marka waa inaan jawaabtii ka soo baxday functionka aan ku keydinaa wax marka waxaan leenahay ka soo qaad af ingiriisi ay qorinaa tokan result waxay la mid tahay functionkii magaciisa qoraysa ahaa isu geyn waxaad siinaysaa marka n1 comma n2 soo ma jeed marka waxaan leenahay marka programkan waxaan leenahay echo jawaabtii aan leenahay noo qor resultki noo qoraya marka hore aan fahamno waxaan idhi functionka declare gareyna waxaan idhi isu geyn number 1 number 2 marka waxaan declare gareyna ujeedada functionku waa inuu isu geeyo labada number. Okay, array waxaan samaysanay variable la jawaabta maxay noo keydinaysaa isu geyntii labada number marka waa inaan dhahnaa number 1 oo loo geeyo number 2 waxaan ku keydinaynaa isu geynta number 1 iyo number waxaan ku keydinaynaa jawaab marka functionka waxaan leenahay noo soo celi jawaabta return macnaheedu wuxuu yahay wixii jawaabtu ahayd noo soo celi marka halkan waxaan sameynaynaa meesha wax ku qoran waxaan callkii functionka marka waxayna tusaysaa sidii loo isticmaali lahaa functionka isu geynta anaga aan declare gareynay marka see loo isticmaali karaa waa inaan laba variable siinaa oo ah midka hore uu noqdaa number kan ku xigana uu number noqdaa aan dhahnaa labada number isu geey aan dhahnaa labada number qaado jawaabtooda noogu keydi labada number qaado raaci functionka jawaabtooda noogu keydi result then echo result jawaabta noogu qor sabuurada marka bal aan save gareeyo marka haddaan meeshan tagno oon ku qorno magaca functionka aan ku qorno haddii wax walba noo hagaagaan jawaabtu waa inay noqotaa 150 muhiimka waxa weeyaan because laba number ayaan functionkan siinay waa ogna shaqadu noo qabanayo numberka koowaad waa 100 kan ku xiga waa 50 labada number sugayaan iri resultiga macnaha waa meeshan ku keedinay wixii functionka jawaabtiisa soo celis ku soo noqon lahaa marka haddaan aan hadda enter dhaho waa inuu 150 nasiya sida halkan ku cado 150 okay seen ku ogaanayna in haddaan tiradii bedelna ka soo qaad meesha aan ka dhigno 60 aan 60 ka dhigno aan control s jawaabta markaan tabano ognahay 60 loo geeyo 110 haddana refresh ku sameeyo waa inuu 110 noqdaa so waxaa halkan uga jeedaan sida aan u isticmaali karno macnaha functionku anagoo isticmaalayna tiro isu geyna xitaa haddaan damcano inaan labadan tiro isku dhufo aan dhahno bas wax kala ma ujeedadu
siyaabo badan oo aan u isticmaali karna ayaa jira functionkan. Masalan hadda haddaan rabno inaan dhahno isugu dhufo, waxaan isticmaalaynaa operatorka isku dhufashada oo dhahno s, macnaha control s. hadda calaamadda halkaa ku caasan waxay noo muujinaysaa isku dhufashadii. marka hadda wuxuu sameynayaa isugeyn oo isaga dheerin laakiin functionka, laakiin hadda isku dhufashuu noo sameynaya. laakiin marka inaan in confuse gareeyo mar raba marka aan u daayo sidiisii marka hore ahaa. laakiin xigmaddu waxay tahay haddaad rabtid function oo isku dhufasho sida kan oo kale aad qori kartaa. meesha keliya aad wax ka bedelaysa waxay tahay inta labada number isu geyn lahayd wax ku dhufanaysaa asterisk aad qoraysaa. haddaad xasuusataan asterisk wuxuu ahaa isku dhufo. haddaad xasuusataan slashka wuxuu ahaa isu qaybin. haddaad xasuusato modular jiray aan hore usoo aragnay. marka muhiim waxay tahay inaad basic fahamtaan. haddaad basic fahamtaan sheekadu waa sahlanaysaa insha allah. marka I hope waxaan rajeynayaa waxaa laga yaabaa inaa isweydiinaysaan aad leedahay why tookadan aan ugu kaydinay isugeyn result, because isugeyn jawaab ayuu soo celinayaa. jawaabtuu soo celinayo waa inaan xafidnaa si aan ugu yeerno functionka echo result. echo result aan dhahnaa no sheeg. haddaan u baahno waxaan samayn karnaa halkan waxaan raaci karnaa echo inta raacina waxaan leeyahay karnaa jawaabta labada tiro waa, dan halkan waxaan raacinaynaa concatenation. waxaa laayay dhibicdii waa ujeedaa concatenation operatorkii aan isticmaalayna operatorkii isugu keen dejinayay numberkii iyo maxaa la dhahaa qoraalkii meesha ku qornaa. marka haddaan haddana aan control s dhaho on tijaabiyo waa inay meesha noogu soo qorantaa jawaabta labada tiro waa 110. waa inuu dhahaa waana ujeedaa jawaabta labada tiro waa 110. haddaan labada tiro aan ku bedelno kasoo qaadan dhahno kani waa 1200. 1250 waa inuu nasiyaa. marka aan dhahno control s computerka asaga compilerkiisa noo xisaabinayo. marka hadda jawaabta waxay noqonaysaa 1250 waa inuu nasiyaa. sida halkan aad uga jeedaan jawaabta labada tiro waa 1250 because 1200 loo geeyo 50 waa 1250. marka I hope inaad fahamteen. waa mahadsantihiin. xoogaa cashirka waa dheeraa laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad fahamtaan xigmadda meesha ku jirto. waa mahadsantihiin walaalayaal.